dowladda galmudug odayaal dhaqameedyada ganacsatada reer Cadaado dhammaantiin waxaan ku salaamay salaanta islaamka salaan kadib wasiir hawshii halkan aan ka wadnay runtii ahayd dowladda galmudug shaqadii dardarta lahayd adiga iyo madaxweyne Axmed Cabdi Kaari aad ka bilowdeen deegaanka galmudug ka dhashay safarkii nabadda ka dhashay aasaaskii ciidamada galmudug daraawiishta aasaaskii ciidamada galmudug bilayska ammaanka la wareegi lahaa ayay maantay waxaan rabnaa haddaan nahay reer Cadaado inaan ku soo wareejino ciidamadii aasaaska u noqon lahaa ciidamada ammaanka galmudug daraawiishta iyo bilayska intaba ahaa run ahaantii shaqadan waxay ku timid shaqa ay soo wada qabteen bulshada indhaheeda hormuudkeeda ay iska kaashadeen ay aaminsan yihiin kuna qanacsan yihiin dowladnimada runtii ah hormuudka ka tihiin maantay dhalinyaradan waa dhalinyaro horay runtii ammaanka u sugi jirtay intii lagu jiray muddadii dowladdii ay jilicsaneed iyo muddooyinkii dambe haddana runtii waxay diyaar u yihiin inay ku biiraan ciidan formal ah ama ciidan qaybtii daraawiishta qaybtooda ka qaataan waxay sidoo kale halkan diyaar u yihiin gaadiidkaas iyo tiknikada halkaas taalla inay dowladda galmudug ku wareejiyaan si shuruud la'aan ah inay uga mid noqdaan ciidankaas la aasaasayo waxaan rabnaa wasiir inaad ku soo dhawaatid ciidankan waa 120 askari waa fayska koowaad ee hadda aan kugu wareejinayno waxaan rabnaa hal mar oo kale inaad tana soo laabatid reer Cadaado dhan oo dhammaystiran inaan kugu wareejino intaan iyo laba laabkeed iyo gaadiid intaan ka badan iyo laba laabkiis runtii horey waxaa lagu wareejiyay gaadiid ilaa 7-8 ah haddana maanta waxaan wareejinaynaa 6 kale waxaa intoo kale iyo ka badan noo harsan ayadana insha Allah tacaala waa marka saddexaad oo soo booqataan aan wareeji doonaa waan ku faraxsanahay inaad maxaa la yiraahdaa munaasabadan maanta nagala soo qayb gasho waxaan ku soo dhaweynayaa nabadoonka